بسم الله الرحمن الرحيم شركيني باينو بلابانيا marka waxaan insha Allah sugnaaba waa hawsheeni oo aan guda gallo iyo sidii ajanduhu ahaa oo aynu u bilaabano waxaan insha Allah ku soo dhaweynayaa sheekhi inoo akhrin lahaa ee inoo fur lahaa aayadaha quraanka iyo muxaadaro yar oo gaaban meel walba oo dad muslimiin isugu yimaadaan waxa khayrku ku jira in lagu furto aayado quraan ah la isna xasuusiyo maanta maalinta ka dambaysa ee berrita ah safarka aynu ku jiro meesha ku nagaan doono aynu tagi doono hadii Ilaahay raa in la is xasuusiyo waa laga maarmaan marka waxaan soo dhaweynayaa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo isagu inoo akhrin doona aayado quraan ah muxaadaro yarna inoo soo jeedin doona waxaan idin ka codsanayaa inaanu si fiican u dhageysano Ilaahay dartii hawshanno inoo bilaabatay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى waxa kaloon aan daba dhigayaa intaas ilaahay inaan ka baqno muslimiin meel isugu nimid baan nahay waajib baa ina saaran xil baa ina saaran inaga nafteena inaga saaran kuwa inaga dambeeyna inaga saaran nabi maxamed kaleey salaatu salaam nin baa intuu u yimaado oran jiray diinta ay bar markaasuu bari jiray wuxuu doonay inuu baro markuu baro aayad la bariya laba aayad la bariya ka badan la bariya iyo wuxuu oran jiray anta rasuul man waraak waxa ka dambeeya adaa rasuul ah maxaa yeelay nabiga wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ballighu anni walaw ayatan bulay iga gaarsiiya hatta aayad kaliya taqaanaan ruux aayad yaqaan aayadaas waajibka inuu gaarsiiyo oo noloshiisa ku tabaqo oo dad ka dambeeya gaarsiiyo marka waxaan idin gaarsiinayaa oo idin sheegayaa wax kamida ilaahay diintiisii ilaahay inaan ka baqno subhanahu wa ta'ala ka baqista ilaahay inaga iyo ummadii inaga horeeyba wala inagu waajibiyay ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala walaqad wasayna alladheena utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah وما سنتهين inaynu dawlad leenahay taas ay noo sheegaysaa marka waa ma santihiin ma sha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أنا جذا قالين واحد جعلان الله إن تعسي أدراني وكوه الله أفكينا يا باش جد واقع دجان وقوي أمريكا ولكن يكون جيري وذا جبجة مسيرنا مع شخص الفاتحة هذا نمر مدن أيار يمروا يندمان مرتدى شرط قيمة هي قاية بدن ككلمات دمان ككلمة دمان وقوي أمريكا وحنا دل يعني كوكو هالليا مقع بيش جدواق هي قد سوق بنقاوي بكسور دوادا شركة تاريخية بيش جدواق هي مقالة منيابوليس مدن أيار يمروا ما أنت واحد يسوون نمد هنا نسبرنا مركا كوات تحكتنا أي نسبرارو جنو هنا نتشنو اسكو تشنو كاتالينو سيدي أمبيش هي بلد كينو كان نمد بأينو وحقو طريلاين إنا وحي خلال صحنو وحي صوبان أنسي زيادنو إنا ظلمي قدينا ماشي دوني باك من جيجيجا إلا يقلا في الله درجة إنا كدوبنا أن نبدا يهرو مركا يدرس وناك هو علامات أصلنا بيش جد واقع واحد كدارتين واحد هيدا تاريخ داله لقو يقين هل يعينمو يهرو مرنمو هل كان كأي النبضة هو كان كأوهين جري كسر بالله أحمد كوري لا جبهتي دبليو سلف أحمد موسى إياه كدي مركي أي ودعاي كريتالسكي منجستو أي دارتي تو بيد العصب وحين وصلك ودقناي وعند ذي بدأ وعصنا إن مامور كمان تجرا كجرا ودن كني وأنا قالوا وحن جوجل في ذناي إن نبضو حدود يساتو هرمر كنا يرجعوا ولا لا يلوح إنه ما أنت ماشي سكون نمت إن المر لبعض أسبوعين سينا بلنتني باش جدوا لقوا يقين إن باش وأحيد حتى نتهي ولينا عندهم لفدبرتا يسلك سياسة النبضة درس وناجا يوضع نورانشا sidaad ogsoon tihiin waxa lagu jiraa marxalada cusub guud ahaan geeska Afrika meelahay dadkeenu degaan wadankeena waxa uu ku jiraa marxalad xasaasi ah oo u baahan inaynu doorkeena la inagu yaqiin si buuxda uga soo baxno waxaan ku jirnaa casri cusub amal iyo cilmi cusub wata leh faa'iidadiisa هي تحديات كي سبب وحلي نوجا باهي هاي إن الله نمادنو سياسات يهوجان أصل كده وياهاي إنه ولي ياهاي سيدي لينجو يقين إنه نهاي أضرب دحات كي يهويجي يدرس وناجين نبض لكن وحكلوس اللي نجبه هي إنه لن ما نسانقات أصل وحلا إنه جبه هي إنه مجرها مر لبعض قرنه تلاية تصالبه عقل يعدود بأنه لن ما نسيدي ودن كاللوجسيها قادرة سياسة أنا هين سياسة ظلمي أم بدي بدوريجا عندها أنا مثل ده حد بجرته سياسة عصب وكل سنة عدالة سنان سيحوجين تنبض إيه درس وناجا سياسة عصب وإسكو فرفريسة جناعسية إيه الصعداء الكدتك وحالي نجربها إنه هويجا هجانك إنه هويجا هجانك ترنا إلا إنه هويجي بينه جديد إنه هويجا دين الدولة دي إنه هجان كده نقبل ولا نجربها
waxaa la inaga rabaa inaynu si quman uga qayb qaadano geedi socodka siyaasadda gobolka meeshii tagoogan aan toosino meeshii turxaan u bixin aan turxaan bixino inaynu la nimaadno geedi siyaasad cusub oo cirib tirta gaajada jahliga korna u qaada tayada nolosha ismaamul goboleedka Soomaalida iyo waddankeena Itoobiya beesha jidwaaqe waa inaan ka soo baxna doorkeeni dabiiciga ahaa ee aynu ka mudannahay geeska Afrika inaynu jihaynaa siyaasadiisa kusii dheeraan maayo hadalka ugu dambeyntii waxaan dhihi lahaa mudanayaal iyo marwooyin iyo martida sharafta lehba waxaan jeclaan lahaa inaan baaq taageera u diro odayaashii iyo cuqaashii in muddo ah ku howlanaa sidii nabadda iyo cadaaladda iyo daris wanaagga iyo wada noolaanshaha loo sii adkeyn lahaa cuqaashaasoo maalin weyta ku soo noqotay jigjiga waxay cuqaashaas inoo xaqiijiyeen mar labaad iyo mar saddexaad in jidwaaqu ay yihiin laga maarmaan inay jidwaaqu yihiin dooxadii deganaanshaha dawladnimada iyo daris wanaagga inaynu mar walba u taaganahay sidii la inooga bartay inaan ka soo baxno doorkeennii inaynu mar labaad aan ku celinayn majaraha u qabana siyaasadeenii salka ku haysay sinaanta cadaaladda iyo daris wanaagga salaan gaara iyo mahad ayaan doonayaa inaan u jeediyo horta mawjadu diiran ee naga soo gashay xagga iyo qabriga xaqiiqatan barnaamij noocan inuu dhaco waxay ahayd waxaadan kuba fikiri karin sanad ka hor imaatinkiina iyo enerjigan faraha badan inay la timaadeen ee wanaagsan ee positive-ka ah ayaa sababay in ay arrintani horta dhacdo marka mahad gaara ayaan kalen rabaa inaan ka hadlo waxa weeyaan xogaa yar oo waxaad moodaa guux yar inuu jiro shirarkii horena laga muujiyay xogaa inay wax cabashii jiraan laakiin waxaan rabaa inaan bal marka hore aan dul maro because haddaadan garanaynin waxa aad haysato waxa kaa maqan ma garan karaysid taa waxaan ula jeedaa ummadda jidwaaq la yidhaahdaa waxay soo martay halgan dheer oo ku salaysan nabad walaalnimo xasilooni isgargaarsi iyo safgarad taasina waxay geeysiisay maanta meesha ay joogaan oo ah inay sal u noqdaan oo aasaas u noqdaan nabadda gobolka Soomaalida ee Itoobiya uu maanta ku fadhiyo ta kale nabadda marka laga hadlo waxaad moodaa nabad waa sida caafimaadka qofka hadduusan xanuunsanin caafimaadka qiimihiisa ma garanaysa ilaa intaad xanuunsato nabadduna waa sidoo kale nabaddu waxa weyn guriga inaad ka soo baxdo aadan cidna ka cabsanayn anoo cidna ka baqayn gabadhaada yar iskuulka tagto wiilkaaga yar dhakhtarka tago saasoo kale aad ku maaragtay ayaa la yidhaahdaa nabadda markaad carro jidwaaq ka baxdo gaadhiga markuu dhaqaaqo waxaa laga baqayaa waa jabhad meel joogta waxaa laga baqayaa wax qarxiya waxaa laga baqayaa wax bad soo dhacda marka nabadda aanu haysano marka hore waa inaanu dareennaa qiimaheeda iyo macaankeeda marka ugu horeyso waa inaanu dareennaa taasina iskamaana imanin ee waa waxa inagu shaqaysanay oo aanan cidna ugu mahad celinayn innaga ilaahay mooyaane cid kale loogu mahadnaq qaba jiri idinkaana ka mas-uula nabaddaas waxaa kale oo nabad markaad haysato daba socdo horumar wax la yidhaahdo waxaa jira caasimaddii inay noqotay magaalo jidwaaq caasimaddaasi kumayna iman garasho la idiin gartay maaha waad shaqaysteen waa waxa idinku kasbateen waa meesha keliya ee qofku intuu yimaado nolol ay ka suuroobi karayso gobolkao dhan waa meesha keliya maamul uu ka suuroobayo weeyaan marka taasina waxay sababtay in la keeno caasimaddii meesha caasimaddu markay meesha timidna waxaa la socda horumar fara badan hadday tahay dhinaca waxbarashada jaamacad la yidhaahdo jigjiga university baa la furay
qurbaan ka maqlay weli maan arag weli maanan tegin waddankiisaan uga soo baxano 4 jira jaamacaddaasi gobolka iyo Itoobiya goboleedeeda kaliya ma aha waxay u noqotay bartilmaameed qof kasta oo Soomaali ah oo ku nool geeska Afrika Puntland waxay ka heshaa scholarship ka heshaa Somaliland way ka heshaa koonfurta kale way ka heshaa marka basically waxaad noqoteen caasimadii Soomaaliya by default inagoo Itoobiya ah oo waddanka ka tirsan oo Itoobiyana ayna haddana waxaan noqonay sidii ay Muqdisho ahaan jirteen 7-meeyadii 8-meeyadii qof kasta Soomaaliya meel walba joog Muqdisho eegan jiray maanta idinka la idin eeganaya marka taasi waxay ay sababtay inaad mas'uuliyad gaar ah ay idin fuusho mas'uuliyadaas waxaad u haysaan gobolkiina waxaad u haysaan Itoobiya waxaad u haysaan Soomaaliya meel walba degan yahay mas'uuliyadaas waxa weyn inaan nabadda ilaalisaan inaan horumarka la barigan taalo khilaafiyo waa jirayaan mar haddii meesha maamul yimaado haddii meesha khilaaf yimaado waxa loo baahan yahay bash jidwaq sida lagu yaqiinay inay maamulka iyo bulshada khilaafka soo dhaxgalay ay sidii la inooga bartay wanaag iyo nabad aynu ku xalino dhibaato la tirsanaya waxa afar badan la tirsanaya laakiin sidii lagu xalin lahaa nabadda ah inaynu taageero halka markaad aragto waxaad haysatay horumarkii waxbarashadii cisbitaaladii airportka internationalka adduunka waxaas oo dhan markaad haysato waxa imanaysa marka su'aasha okay waxaan waanu haysanaa maxay inaga maqan wixii inaga maqnaa inagoo maskaxdeedu ay degan tahay oo aan kacsanayn inaanu wixii darisno la faguro oo aynu go'aan qaadano marka meesha halkeen uga sii dhaqaaqi lahayn waxaan markaa aanu soo jeedin lahaa in la aasaaso dalad ka dhaxaysa jaaliyadda oo hawlaha banaanka iyo gudaha ka dhacaya labadaba u xilsaaran guddigaasina uu isagu qaban qaabiyo hufo oo uu dhiso technical committees ka shaqeyn lahaa hawlahaasi taa waxaan uga baxayaa dhinaca iyo waddankii okay waxa weeyaan markii ay shirweynuhu markii ay doodeen ayna ka doodeen xaaladaha iyo arrimaha iyo danaha beesha tadibadda iyo tii gudahaba waxa go'aan lagu gaaray arrimahan soo socda wuxuu shirweynuhu ka hadlay arrimahan waxa ugu horeysay kadib markii laga wada hadlay oo la eegay arrimaha beesha Tidwaq waxaan ognahay in odayaasha Tidwaq ay yimaadeen Addis Ababa una yimaadeen cabasho reer galbeedku waxay yiraahdaan grievance sidoo kale family-ga markaad ka soo qaado caruurtaada hadday wax isku qabsadaan hooyo oo maaba loo tagay waxa leeyahay alaabtayda iga qaatay kan waxaan iga qaatay marka hooyada iyo abuhu waa inay marka dhageystaan waxa weeyaan odayaasha Tidwaq 6 bilood ayay waxay joogeen iyagoo nabad raadis ah magaalada Addis Ababa oo ay federaalka u geeyeen dacwadoodii federaalkuna si wanaagsan bay u dhageysteen federaalku waxay yiraahdeen arrimaha idinka xallin kara dad federaala tihiin marka dawladda federaalku aad iyo aad ban ugu mahadnaqaynaa adduunka waxa la yiraahdaa moogtahay bilaadanku wuxuu isku afkartaa ma dugaaguna wuxuu isku afkartaa urta bilaaadankuna wuxuu isku afkartaa wada hadalka marka عليه الصلاة والسلام نبي محمد أماني كركي ساعة مركو إلى هاي القرآن كأسود يبي وحور اقرأ آخري أو أمد هذا أوجي أرمهن مركا كي أو لقد بالآدم كوردني أي كتب راعيان إن قرآن كتاب كقرآن كا وحي كويا لي شرعي كويا لي أيا بالآدم كوحي سمايستين
sharci marka waxa loo yaqaanaa dastuur beesha jidwaaq dastuurka iyo dawlad goboleedka markii la aasaasayay qayb weyn bay ka qaateen dadkii muxuu ahaa abruuf gareeyay ee raacayna way ahaayeen inay ku wada dhaqmaan marka dastuurka sidiisaba inna ku dhaqmi maysid inna waan ku dhaqmaa ma noqon karto marka dastuurku sidiisaba wuxuu kuu sheegayaa kow iyo awoodda iska leh ugu weyn awoodda ugu weyn dadweynaha iska leh awoodda labaad waxaa helaya ummaddu dadka ay doortaan hadday madaxweyne tahay hadday prime minister tahay iyo baarlamaanka oo iyaguna dadka wakiilka ka ah beesha jidwaaq waxay aragtay in dhibaatooyin jiraan dhibaatooyinkiina waxay la kaashatay inay kala hadasho dawladda deegaanka iyo dawladda federaalka intaba marka waxa weeyaan waxay arkeen in marka la yiraahdo xagga muxuu ahaa dawladda ama dawlad wanaaga dadka wada wadaaga waxay u arkeen in dadka gobolka degan in gaara ay ku amar ku taaglayso awoodda oo dhan sida awgeed waxay diyaar u yihiin inay saxaan marka guddigeenu waa guddiga odayaashu waa guddiga wada tashiga iyo sixidda arrintaasina anagu hadda waanan taageersanahay odayaasheedii jidwaaqaha dawladda iyadana waanu taageersanahay ta lookaalka iyo ta federaalka labadaba waan taageersanahay waxaan saleenahay oo aan taageersanahay in la wada fadhiisto la wada hadlo la wada tashado xal maaha jidwaaqoo keliya waa in dadka deegaanka degan oo dhan xaqooga iyo xuquuqdooda la ilaaliyo markaas qodobkaasi wuxuu ahaa kii xagga dastuurka qodobka labaad waxa weeyaan inagu haddii aan maaragtay muxuu ahaa shirka markaan isku nimaado ka wada hadallo shirkeenna waxaan go'aansannay inaan guddi aan samaysano guddiyadu walaalayaal waa badan yihiin guddigu maxay sameeyaan waa dawlad yar oo kale waxa weeyaan inay bulshada u adeegaan soo bulshada waxa jirta in waliba waxbay u baahan tahay kii businesska lahaa kii baacimusharka waxbuu u baahan yahay kii odaygii islaantii qof waliba waxbuu u baahan yahay marka waxa weeyaan bulshadaasi inay u adeegto waa in guddi loo sameeyo waxaa kaloo meesha ku jira guddigaasi marka la sameeyo guddiyo badan oo xagga horumarinta ah waxbarashada iyagana inay dadkaasi ay hawsha ka sii wadi doonaan isla markaana ay waddanka gudihiisa wixii ka socda iyo kuwa gudahaba ay la socon doonaan waxaa kaloo ka codsanaynaa dawladda federaalka inaanu taageersanahay in dawladda federaalku ay horumarka weyn ay ka samaysay gobolkeenana aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa hawlaha waaweyn ee la qabtay xagga muxuu ahaa deegaankana iyagana waan ku mahadinaynaa waxaa kaloon codsanaynaa waxaa jira dad jaaliyadda u dhashay iyo dad kaleba dadka xidhan in xuquuqdooda loo ilaaliyo oo la sii daayo qofkii siyaasadu xidhan laakiin aan lagu haynin inaan la iska haysan qofka inaan qofna la isla xidhi karin arrimahaasi in la tixgeliyo xuquuqda bini'aadanka ta shakhsiga iyo ta guudba taasi maxay tahay taasi waxay ka mid tahay dawlad wanaagay ka mid tahay oo dawladdu hadday wanaagsan tahay dadkii oo dhan way wada hagaagayaan
haddii kale dee dhib baa imanaa annagu waxaan nidhi waxaanu taageersannahay wada tashi wada shaqayn iyo nabadgelyo ayaanu taageersannahay waxaanan aaminsannahay habeen iyo maalin in aanu diyaar u nahay inaan ummadayada ta gudaha ee waddankii joogta annagoon dadka kililka u kala eexanaynin inaan taageerno oo wax la qabanno odayaashayadiina waan taageersannahay 100% oo waxaan ku taageersannahay in dhibaatooyinka ay sheegteen wax laga qabto waxay ka mid tahay dawlad wanaagay ka mid tahay daris wanaagay ka mid tahay malihin annagu haddaan jid waaqnahay cid baan ka xignaa dhulka waan wada leenahay dad walaalaan nahay laakiin waa inaananu isku xadgudbin ee waa in sidii adigu aad rabto in lagu tixgeliyo inaad qofka kalena u tixgeliso waxaan waliba intaa ku daraynaa dhammaan dadka degan in dawlad wanaag loo sameeyo dadku iskaashadaan horumarka iyo waddanka wanaagiisa laga shaqeeyo intaasoo dhammaan taageersannahay walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa weeyaan waanan isla soconaynaa dadka dhammaantiin marwooyinka iyo mudanayaasha iyo martida sharafta leh aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum salaamayaa bulshadan ka soo qayb gashay shirkan loogu talagalay beesha jidwaaq ee nabadda hoyalay 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 hoye allahe de hoyalay hoyalay ho horay mayaygo higleen hawsarka cabaysan hubkaan rido halaagan rikibo honka iyo qiiqa afrikaan ninkii haystayee looga hudu tuulay hanjabaadini lagu eryaa waa halaan jirine hadduu hadal horan baxay kana hatan dabaya dulkeeno xareedii shubto dulkeeno sada gabay baryahan waanigii aan ka saahidaye waanigii silsiladaan sudhiyo seetaya gede sababaan arkaygu wacan inaan sameeyaye surgin baan arkaa lagu dhiciyo seefafayn badane saacadii ku dhaaftaa ma jiro gooray soo noqone samaan iyo wanaagga fashana wuu ku saaciidiye maxaa helay sinaantiyo dadkii samaha keenayay maxaa helay sinaantiyo dadkii samaha keenay sabbixiyo watiniya baqraan kugu su'aalaye suuradaha quraan oo dhan baan kugu su'aalaye satirow allahayowna yeel nabadda soorteeda satirow allahayowna yeel nabadda soortee intaasaan kusoo gaabinayaa anoo dadka maqal kuwa dane waxaan idin dareensiiyay haddii aan duqay iyo dhaliin daacad loo noqonin oo aan laga digtoonaan sharciga waa mid noo darane haddaan kurayga goladiidka ee filinka soo daawan ee danayn jagjaan iyo hadeer filin la soo duubay haddaan laga digtoonaan bulshooy waa mid noo darane haddaan dumarka baay ee dawada marya diirkooda tarnaafaad riko iyo waxlahan lagu daluugayo haddaan laga digtoonaan bulshooy waa mid noo daraale markuu daad ku marayuu dhulkanii doga bixiyaaye
daawashada qurxoon bay indhuhu dogsan gaabigoode durbawdu gageedkiyo caleen dahab la moodayo markuu daadku marayo dhulkeennu dibadda keenaye dunyadu markay soo cuntay caana darartaye darab iyo baruur xooggan bay wada dibaaxshaane marka ay dhammaan noqota ee dibadda loo dhoofsho dollar iyo waxaa laga helaa dahabka caydhiine dadkaygow fiirso waryaan layska daabargoynin oo geedahaad wada dubtaan daya baadankiinnu dibna yaana loo gurin ileen dagalkii weeyaane dabaabaadka guuxee arlada lagu difaacayo diyaarada wixii laga helaa waa dabaaxadhiye haddaan dagalku daaq ku lahayn dunya way hadhiye dabargoynka jira geedka iyo duda iyo kaynta oo yaan la dabjarin arladu wayno dahaabe daalo tayo faafan buu dogu dheer yahaye tiridhaba ilaa adari baa lagu dalxiisaaye docda faafaneed iyo jigjiga lagu damaashaaye waynaan dareemin dhulkiyo dhaquwa hamaashe qabri bayax docdeeda dhammaan lagu dalxiisaaye waynaan dareemin dhammaan dhaquwa hamashe haddii dalag la qodan ruux qudhaba kuma dagaageene haddii dalag la qodan ruux qudhaba kuma dagaageene waynaan dareemine dhulkiyo daquwa hamaashe qarnigay Itoobiya jirtiyo qoraladii yaalay hadba qaab waxay soo martay dowlad qaabataaba qaraarku dhargigu geystay baa ugu qadhaadhaye qalashada dadkiyo maatidu moodi jiray qiile EPRDF markay qabatay bay qeexday nabadiye qoraalada dastuurka bulshada loo qadariyaye qof waliba mabtii uu leeyahay qowlka hadafkiye qaranka Soomaaliya burburay haddaan qodob ku faalayo ummadii ka soo wada qaxday gaaja qaalanaysay qaranka Itoobiya u furay meel lagu qudsho abni qaali weeye markii ay degmadu qaaday wali qalad ma jiro ruuxumaan loogu qoonsadaaye qabri bayax inay qaali tahay qaladna loo waayay amniga qoxootiga ka garan quruxda loo joogo midda kale waxaan doonayaa inaan caddeeyo shirkan isaga ah oo socday muddo dheer soo socday oo rag juhdi badan ay ku bixiyeen ay aad iyo aad uga soo shaqeeyeen oo in badan isbedelay inuu yahay shirka nabadda iyo horumarka beesha Jidwaaq markay noqdeen inay odayaashii isu tageen ay la baxeen jabhadda xoreynta Soomaali galbeed magacaas waa magac Jidwaaq uu bixiyay weeyaan waxaana gudoomiye ka ahaa Muuse Axmediyey halgankii dheeraa ay Jidwaaq soo galay intuu soo socday markii dambe ee dawladda kacaanka Soomaali ay dhalatay dib doorashadii loo galay Cabdillah oo garanaya dhulku wuxuu yahay saasaanu ilaa hadda ku joognaa Jidwaaq waa dad nabadeed oo beeraley ah saasaanu cid walba ugu sheegaynaa waxaan soo dhawaynaynaa shirka lagu qabanayo qowmiyadaha Itoobiya ayaan soo dhawaynaynaa gacmo furan ma ku soo dhawaynaynaa gogoshaan u dhigaynaa nabadan aad iyo aad uga shaqaynaynaa anigoo hadalkii bi'iyay waxaan ku soo koobayaa Jidwaaq ha noolaado Jidwaaq ha noolaado Jidwaaq wanaagiisa santiisa ha kala garto Jidwaaq ha isku xidhnaado ha midoobo tawfiiqna Allah siiyo amiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتا آدي آد ومهسيهاي سلطان ميهي سلطان ندي يوعي ويجوغان دتكي لكن كرادة أيان كرد شيء
runtii muxuu ahaa xooga yar maaragtay Soomaalida way isxurmaysaa xurmadii waan ka qabaa laakiin suldaamihi insha Allah taala hadalkayga horta saddex baan ku koobayaa horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baan ku mahadinaynaa oo maanta aan isku imaanay oo maanta isku soo imaanay oo maanta maaragtay intaas oo islaan ah isku soo imaanay aad iyo aad baad idinkan u mahadsantihiin annakii oo maaragtay beelaha jigjiga shir sharafeedkii aad qabateen ugu martiqaadeen imaadkii aan idiin imaaneen annakana waa mahadsannahay idinkiina ugu martiqaadeena waad mahadsantihiin runtii hadalkayga saddex baan u kala qaadayaa runtii zone afdheer baan ka tirsannahay degmadeennana waa Qarsaaduula waa la yaqaanaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dalkii baad tihiin deegaan baad tihiin deegaankiina dhul waaye oo ma caroodo dhulku ma caroodo wax kasta lagu sameeyay ha caroonina haddii dib aan idin geysano ama Soomaali kale idinku geysta si fiican u daga taa horta intaasaan idin leeyahay ugu dambeystii mahmaah baa lahaan jiray aniga waa yaqaan aagu suldaan hey markii hore shimbir bay ahayd maanta shimbir maaha maanta waxaa waaye haddii oo uga yar waqti la siiyo nin sidii hadda suldaankaas oo kale ah ilmihiisi wuxuu u reebay afar buu u reebay ciidda digada iyo waran iyo gaashaanka iyo maxay intuu dhari ku riday buu meel ku xabaalay wuxuu yiri dhaxalkiina waa ka wax garad bay u geeyeen waxay yiraahdeen aabaheena saasuna yiri marka wiilashiiba waxay yiraahdeen wax garadka doona intay wadada marayeen lix bay arkeen lixdii mid ka mid ah ayaan idin sheegayaa lixdii kama gaari karo mas weyn bay arkeen oo biyo socdo webigii oo dhan afka u kala haya oo cabaya xagga dambana kama duleelo mana dilaaco mana dibiro biyihii way ku socdaan markaasaa waxay ku yidhaaheen haddii afartii kale haddaad waqti isiisa waan idin sheegi lahaa laakiin afarta kale hadda ma kama gaari karo middaas kale aan idin sheegaya ninkii wax garadkay u tageen waxay yidhaaheen waxa aan weligeen arkin baan aragnay waa mas weyn biyihii dhan way ku socdaan xagga dambe kama duleelo ma dilaaco ma dibiro ma bararo maxay wax u dhaceen bay yidhaaheen marka ninkii wax garadka ah wuu sheegay wuxuu yidhi waxaas anigana i gaari mahayaan idinkana idin gaari mahayaane aakhiru samaa waxaa imaan doona nin dalka oo dhan xukuma wixii oo dhan asaga wada laqayo oona dhargaynin Soomaalida kaasa laga ilaaliyo waad mahadsantiin waxaan rajaynayaa inaad nabad qabtaan khayraysan tihiin haddana calooshu idin buuxdo Ameerikaad joogtaan gaajada ma waxaan rajaynayaa inaad garan ka dhaan habsamida aad samaysteen inaad yani garansan tihiin wanaagga aad reerkiinu sameeyey iyo himmadda aad u haystaan Soomaalida anigu waxaan doonayaa horta waxaan dhalashadeedu tahay Cabdi Xaashi Albaab baa la yiraahdaa meel qalloocan la yiraahdo dadku aqoonin ay aqoon baan ku dhashay galaadi qordheer intaas u dhaxaysa waxaan jigjiga waxbaan ku leeyahay waayo kaliilkiina waa yahay haybna waa u joogaa haybna waa u hay oo haybtii deegaankiina waxbaan ku leeyahay waxay ahayd jigjiga meel anigu waa tegi jiray jigjiga xilliyaalkii hore waxay ahayd 52 baan horta jigjiga bartay waxayna dhalateen u malayn maayo haddaad dhalateen odaygaas ma dhashay marka waxay ahayd meel yar laakiin habboon oo dadku degan yahay ummad degan oo aan violent ahayn oo reer magaal asala aad moodaysid oo Soomaaliduna markaa reer magaal ma ahayn nin walba wuxuu istay toorey iyo haweenkii ku seexan jiray
dad unsaas u degan baa ku arki jiray mar dambe waa soo maray markii saddexaad waa soo maray hadda markaan soo baxayana iyadan ka imid laakiin jeclaanta jigjiga iyo ummaddeeda aan u qabo dartood dhidid baa iga yimaada haddana waa tegaya haddii rabbi waxaan u marayaa suldaan badi baanu isnaqiinay ummaddiina isagoo dhan badnaa inaan aqoodo isagana waana uga mahadnaqayaa inuu caawa halkaan aniga ii imitaariyey idinkuna aan rajaynayo inaad ii ducayn doontaan markaan ka tago xanuun bay hayeen anigu waxaan idinkala hadlayaa oo keli ah hal waa laga hadlay laakiin waa xoojinayaa nabadda sideeda bini aadamku markuu dhasho buu koraa life is a struggle bay yidhahdaan dadkan aynu la joognaa hadda noloshu waa halgan bay yidhahdaan markuu kaco markuu dhasho wuxuu yidhahdaa waa booyaa maxaa halkan la ii keenay yaa wacisiiya gaajahayse maxaa dhacay buu leey ka maaleen markuu weynaado wuxuu doonayaa inuu wax qabsado inuu noolaado marka qofku bini aadamkaahi wuxuu doonayaa wax inuu helo wuxuu heli lahaana waa u muuqdaan waxa ka xigsan u diidi karaase waa nabad adoo heli karaa wixii aad rabtay baa nabadu kuu diidi kartaa marka ninka nabadu u diido noloshiisii soo ibtila maaha haddaba waxaan idiin sheegayaa nolol aan nabad ahaynu ma jirto nabadda aad qaadateen oo la qaadateen dowladda Itoobiya iyo mujtamaca kaleeto oo Soomaalida oo idinla degan waad mahadsantahay maxamed assalaamu calaykum dhammaan beesha jidwaaq ee halkan iskugu timiday aad baad u mahadsantihiin intaad namarti geliseen ee ugu macsantihiin anuu hadal ku dheeraan maayo waxaa taariikhdaba inta la ogyahay ee taariikhba qoran tahay kililka kolka laga hadlayo kililka annagu haddaan nahay gobolka city jigjiga weligeed waxaan u naqaanaa beesha jidwaaq deegaanay degan tahay ay leedahay waana dadaan jaar nahay wax badan wadaagno dhaqan ahaan deegaan ahaan xaq iyo xuquuq baan ku leenahay gobolka beesha jidwaaq garaadadooda hadday complain gareeyaan Itoobiya yidhaahiin Itoobiya waan dhacannahay xaq bay u leeyihiin Itoobiya wax lama weydiin jirin Itoobiya waxay noola dhaqmi jirtay ajnabi inaan nahay nin wallo Itoobiya ku dhashay intii noo dhan Itoobiya ka wada timaadeen waad garanaysaa maanta waxaan xaq u leenahay gobol 350,000 oo square kilometer ah ka kooban dharar ahaan Kenya gaadhaya Djibouti hadalku waan soo gaabinay wax weeyaan beesha jidwaaq qayb weyn sidoo odagu sheegay qayb weyn bay dhaqanka Soomaaliyeed ka qaadatay taariikh dheer waa leedihiin waana ku mahadsantihiin magaalada Jigjiga inaad dadka Soomaalida kale ee gobolka u dheelay inaad ku soo dhaweysay dhulkeenu waa dhul weyn waa deegaan weyn waa deegaan wax kasta Ilaahay siiyay iskuulada waxaa noogu dhigi jiray inuu deegaanku waxba lahayn uu desert yahay maanta dhulkeenu waa qani sida aad ogtihiin qayb Sooshinile iyo Jigjiga iska soo gaaraan waxaa dhawaan laga helay khayraad badan intiina badan wax qariday waad ogtihiin waxaa tihiin ubadkiina innika fiijarkii khayraadka u hayaatiin waa dhulkeeni weeye haddaan dawladda saluugsannahay
dowladda waa in runta loo sheego waxba run ilaa la sheego waxa ma hagaagaan runtu waa muhiim aad bay qaali u tahay ka talada haya annaku naga mid yahay waa dadkeena wax badan uu imika waa la qabtay biyaal ceelashii baa la qoday ardaydii baa iskuulla heshay intaasoo kun oo arday ayaa kilalka iskuullada u gasha jaamacadii Etoobiyana noo diidanaa baan ka buuxnaa yani wax badan baa noo furfurmay ilaahayna ha noo siyaadiyo qolka anu waxaan leeyahay walaalayaal waad mahadsantihiin saa noogu soo dhaweyseen shirkiinan beesha jidwaaq annaguna waxaan leenahay insha allah marka aan wax qabanayno waan soo dhaweynaynaa marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan salaamayaa dhammaan garaadada suldaamada waxgaradka dhalinyarada beesha haweenka iyo dhammaan salaadiinta aqoonyahanka beelaha kale ee Soomaaliyeed walaalaheena ee shirka nala jooga inta kadib runaantii anu Canada deganahay shirkan ayay la jecelahay inaan ka soo qayb galo inaan arko intan oo qof waan jidwaaq ah oo maxaan ku raahdaa halkan holkan soo yimid taa macnaheedu ma jidwaaq inuu yeeyahay horta maanta waxaad moodaa jidwaaq runaantii in uu magaciisi weynaa iyo sharaftiisi taariikhda gashay dib ula soo noqonayo calaamadaheedina way muuqdaan waana la gudagalay waana kuwa practical oo qof kasta indhiisa hortaala shirkan beesha jidwaaq oo ah mid ku salaysan nabad iyo horumar wuxuu ka turjumayaa taariikhda dheer ee ay beeshu u leedahay cadaaladda wada noolaanshaha iyo daris wanaagga taariikhda sooyaalka ahi waxa ina baraysaa sida aynu taariikhda ku hayno beeshu waxay ahayd mid mar walba ka talisa wanaagga iyo wadajirka beelaha Soomaaliyeed ee kale ta kale waxaynu ognahay isbedelka ka dhacay maxaan ku raahdaa Ethiopia markii kaliya taliyay Mengistu oo xukunka laga tuuray maxaan ku raahdaa isbedelka cusub u yimid waxaynu ognahay beesha jidwaaq runaantii halgankii dheeraa ee u soo gashay in ay isku hayso midnimada iyo wadajirka beelaha Soomaaliyeed si ay wax u noqdaan Etoobiyadana uga mid noqdaan marka walaalayaal waxaynu ognahay sideedaba marka ay beelmeel joogto beeshaasi ama waxay ka talisaa wanaag ama waxay ka talisaa xumaan marka waxa looga bartay beesha jidwaaq waxa weeyaan markasta inay ka taliso nabadda wanaaga iyo inay hadardaameynin beelaha kale ee walaalahooda ee la degan shirkanina maanta taas ayuu ku saleysan yahay waa shir nabadeed waa shir ka talinaya wadajirka iyo wanaaga waxa qabsiga beesha jidwaaq isagoo aan qofna la dulmiynin marka la yiraahdo beesha jidwaaq maxay matalan hadda waxyaalaha badan soo baxaya waxaan ognahay in ay yani horta inay jiraan maxaan ku raahdaa waxyaalo ama cabashooyin ah ama dadku ay dareemayaan oo ah beesha jidwaaq maanta siyaasadda gobolka in ay ka ciyaarayso door weyn laakiin ay mudan tahay door inta ka weyn inay ka ciyaarto marka taa marka la leeyahay ma wax sax ah mise wax sax ma aha waa wax sax ah beesha jidwaaq baaxad ay leedahay waa mid aad u weyn laakiin waa mid mararka qaarkood dabool la saaro weeyaan beesha jidwaaq sidaynu ognahay waa beel weyn oo ku baahsan dhammaan deegaanka gobolka maantii aniga waddanka waa laga badiyaa waa inaan taaqirto anigu dabcan yani ma doonayo inaan siyarfaaniya ma doonayo anigu saxaafadda ayaan ka baxay journalist ayaan ahay by training 10 sano u dambeeyay si aan isleeyahay way hufan tahay ayaan siyaasadda deegaanka iyo ta Soomaalida wax uga qorayay taa macnaheedu marka ma ahayn in aan ku helo anigu ama sharaf aan ku helo ama lacag la igu siiyo
waxay ahayd dareenkayga shakhsiyeed iyo lexjeclada iga haysa danaha jidwaaq iyo danaha soomaalida kaleba beeshan jidwaaq run ahaantii siyaasiyan waa beel bisil siyaasiyan laakiin waa beel nabadda jecel maantana siyaasadda afrika waxay ku salaysan tahay siyaasad siflaboodnimo ah siyaasad maxaan ku dhahdaayey ninka hadallada xun ee dadka aflagaadeeya uu guulaysto ninka doonaya si yaroo maldahaan oo wanaagsan inuu shaqeeyana muddo badan ay ku qaato inay soo baxdo marka arrintaas ayaa keenta marka beesha jidwaaq inay dib uga dhacdo siyaasadda maanta ka taagan soomaaliya iyo kilalka labadaba waan idin salaamayaa anoo magacayga ku hadlaya Bashiir Garaad iyo magaca beesha aan ka soo jeedo ee jidwaaq iyo beesha aan ka soo jeedo ee Absame iyo waliba kuumade sidoo kale anoo ka soo jeeda Soomaali galbeed Soomaalida Itoobiya ku nool runtii salaan kalgacal ayaan idinku salaamayaa waanaad mahadsantihiin saaxiibkiina diiran marti sharafta dulqaadka badaneed muujiseen runtii reer Minneapolis waxaan idin siinayaa gacan baan idin siinayaa aad baad u mahadsantihiin waxaad muujiseen waxaan horey loo muujinin waxaad kaloo muujiseen dadnimada aad leedihiin iyo isku xidhnaantaha ayaad muujiseen waxyaabo fara badan baa dadku ku ducaynayeen anuu hal erey baa idinku ducaynaya tawfiiqda idinku ducaynaya intaan baa hadhsanay hadda ha yaraysanina inkastoo nin yar ahoon timo badnahay ducadeedu way baxdaa mahadnaqa sakow barnaamijka haddaan u gudagalo waxay dad badan oo deegaanka ka soo jeeda iyo dadyow kalaba Itoobiya marka la yidhaahdo u arkaan inay axmaara leedahay ama Oromo leedahay ama qolo kale leedahay laakiin taas 22kii sano ee ugu dambeysay dimuqraadiyaddii curatay waxay tustay soo bannaan bixisay bannaanka soo dhigtay inaynan taas ahayn kelmaddu ka duwan tahay waxaan in yar maanta time u qaadanayaa waqtigii inkastoo yar yahay ka muujiyo Itoobiya waayo maxayse tahay Itoobiyada cusub Itoobiyada cusub waa in ka badan 80 qowmiyadood ma aha qabiil ah kama hadlaya jidwaaq iyo ogaadeen iyo gariya kama hadlaya waa qowmiyad weeyaan Soomaalidu 80 qowmiyadood in ka badan ayaa Itoobiya ay ka dhaxaysaa oo Itoobiya wadaaga oo harsada calanka aad aragtaan calaamada dhaxda ku taala 1995 bay ahayd baan u malaynayaa markii dastuurka la ansixiyay muddo badan oo bilooyin ah ayaa loo fadhiyay si loogu daro calaamada sarkalka ahaa oo ka turjumaysa qowmiyadaha Itoobiya markaas ayay bilaabatay Itoobiyada cusub ee dimuqraadiyadda waxaana qaaday calaamadaas calanka kale wuu jiray laakiin calaamada dhaxda lagu daray ayay ahayd astaanta aan ku hadlayno ee Itoobiyada ka ambaqaaday waxay mission iyo vision ka dhigteen aragti muuqaal aha inay sugaan ammaanka nabadgelyada wada noolaanshaha dhaqaalaha horumarka iyo isjacayl qowmiyaduhu inay ku wada noolaadaan ayay sugtay oo ahayd aragtideeda koobaad waxay qowmiyadahaasi isku raaceen dastuur aragti qoraal ay samaysteen oo ay ku heshiiyeen oo xuduudahooda magacyadooda diimahooda dhaqamadooda lagu ixtiraamo oo aan lagu xadgudbin ta shakhsiyadeed iyo ta bulshada labadaba dimuqraadiyadaas waqtiga hana qaaday
waa ta suuro gelisay in xorriyaddeena inoo soo noqoto xorriyadda shakhsiyadduna soo noqoto ta bulshaduna soo noqoto dhaqandhaqaaluhuna soo noqdo horumarkan maanta jiraana uu sabab u ahayd saldhig u ahayd bundhig u ahayd inay halkan iyo darajadan aan soo gaadhno inteenan iyo in ka badanbana ay ku taamayaan dadnimadooda iyo tayadooda iyo wadajirkooga wada noolaanshaha iyo wadaninimada horumarka gees ilaa ka gees gobolka Tigreega laga soo bilaabo gobolka Gambeelaha ka Canfarta ka Binishaangulta ka Dhabuub Xisbooj ka Oromada ka Axmaarada ka Soomaalida Hararida iyo labada magaalo ee federaalka ahaa qowmiyadda ku nool oo 90 milyan ku dhow waxay ku siman yihiin isku afkarteen inay nabad iyo wadajir iyo kalgacal ku wadaagaan nin walbana danihiisa lagu ixtiraamo waxaa su'aal ah oo in badan isweydiiyaan gobolkan inagu ka soo jeedno dimuqraadiyaddaas iyo is-afgaradkaas ma ka qayb qaatay muxuu kala wadaagay halkee buu ka taagan yahay xagee buuse u sii socdaa su'aalahaas haddaan si yaroo kooban uga jawaabo waxaa mahad aha in deegaanka Soomaalida ay ka qayb qaateen horumarka iyo nabadda iyo isjacaylka qowmiyadaha taasna ay tusaale u tahay in Jigjiga magaalo madaxda deegaanka Soomaalida Itoobiya lagu qabanayo 80 qowmiyadood shirarkoodii dastuurka federaalka wuxuu inoo xaqiijiyay inaan samaysano dastuur ama xeer hoosaad innaga inoo gooni ah oo way muxuu gooni inoogu yahay maadaama aan dhaqan gooni ah leenahay inaan dhaqankeena goonida xafidno diinteenna xafidno luuqadeenna xafidno dadnimadeenna xafidno xuduudaheennana xafidno rabitaankeenana xafidno horumarkeennana aan samayno ayuu xeer hoosaadkaasi inoo qeexaya waxaynu leenahay baarlamaan waxaan leenahay golo wasiire waxaan leenahay hay'ado dawli ah oo dhammaystiran haddaad fiiriso astaamo dawlad marka laga hadlayo dhammaan astaamaheedii waan leenahay way jiri karaan meelo daldaloola ah sababtoo ahaa waxaan rabaa bal inaan su'aal idin weydiiyo qof farihiisu siman yahay ma jiraa qof farihiisu siman yahay hadduunan jirin bini'aadankuna saasayna u sinayn qofkii ilaahay u qoray mas'uuliyadda inuu qaado waxna waa ka qaldami karaan waxna waa ka saxtami karaan laakiin ahmiyadda muhiimkii waxay tahay wixii saxma in la isku dhiirigeliyo wixii qaldamana in si eedaab ah oo tarbiyad ah oo wanaagsan lagu wada hadlo sida hadda odayaashu sameeyeen muddadaas dhowr iyo 22 sano ah dimuqraadiyaddu ka jirtay gobolka kaliya ah ee 10 madaxweyne soo maray waa gobolkeena micnaheedu ma ahayn inay qasab inagu tahay inaan 10 madaxweyne yeelano waxay ahayd kii horumar sameyn waayba in la yiraahdo bal aynu wax wanaagsan sii raadina wali wax wanaagsan ma sii raadinaynaa kuwii soo maray oo dhan 10 madaxweyne iyo ka joogaba waan uga mahadnaqaynaa way u soo adeegeen bulshadooda qaladaadka ka dhacayna waa bil aadan kuwa dambe imanayana ma aha malaa'ik iyagana qalad ba ka dhici kara kuwaasina bulshada u adeegayaan waxaan taa uga dan leeyahay 11aad ama kana ha noqdeen inna kuma waarayo shacabku iyo dawladuba inay gacmaha isqabsadaan oo ay horumariyaan deegaanka iyo dalkana waxaan malaynayaa odaygii ciidii yaxbu ka sheekeynayay oo dhowrkii shay oo ninka uga tagay odaygu aabii uga tagay waxaan rabaa inaan idiin sheego shayga ugu muhiimsan ee dhaxalka ahaa ee godka lagu riday ciidda ugu muhiimsanayd way ciiddu ugu muhiimsanayd waa hooyada because lacagtu way dhamaataa waana la keenaa xoolaha way dhamaadaan waana la keenaa laakiin ciiddu waa ciiddaadii weeyaan waa ciiddii hooyo marka ahmiyad ballaaran inaan siino dhulkeena
soo haddaan qodobkaygu soo noqdo deegaanku uu ka qayb qaatay horumarka iyo dimuqraadiyaddii curatay waxaan rajaynaynaa inaan hadhsanna in ay ka sii faa'iidaystaan iyaga iyo inaguba haddaan u soo noqdo qodobkayga saddexaad oo ah jigjiga magaalo madaxda deegaanka Soomaalida waxaa iska leh Soomaalida Itoobiya oo dhan baa iska leh hadda waan dareensanahay waana garan karaa in qabiilka Jidwaaq ama qoyska beesha Jidwaaq lagu magacaabo waa run beesha Jidwaaq baa iska leh dhulka ninka degan yahay xitaa madaxweynaha dhaho dhul Jidwaaq una iibin nin kale oo degan ma jiraan u malaynaya marka runta laga hadlo laakiin hadda jigjiga waa magaalo madaxdii deegaanka Soomaalida dawladda deegaanka Soomaalida shacabka Soomaaliyeed ee ismaamulka Itoobiya ayaana iska leh waxa inaga aadan ummadaas qaybta ay joogaan qayb la mid ah horumarka inaan ka qayb qaadano kii guri dhisanaya kii qandaraas qaadanaya kii nabadda ka shaqeynaya kii hadal wanaagsan oranaya kii qalad ku arka saxaya inaan ka mid noqono gogol baynu fadinay waan idinka mahad celinayaa Jidwaaq waa sharafta iyo aqoontii la idinku yaqaanay weeyaan gogosha wanaagsan iyo nabadda aad fidisaan ma mid hadda dhalatayba maya waa mid laga soo sheekeeyay qarni to qarni quruxda sharafta qadarinta iyo nabadda ay jecelyihiin reer Jidwaaq iyo gogoshay fadiyaan waxay dulqaad iyo samir iyo dhabar weyn u leeyihiin 7 milyan oo Soomaali Itoobiya ah inay ku xambaareen dhabarkoogii magaaladoodina ku soo dhaweeyeen habeen iyo maalin nabadgelyada ka haysa qofka bilaadanka saddex shay baa ugu muhiimsan inuu helo waa hoyga hunguriga qodobka saxadna exactly waxa lagu maamaahay jiray rag gogoshii waa nabad Soomaaliyeed rag kaliya ma waxa laga hadlayaa bilaadanka oo dhan because dumarka laftooda waxa weeyaan nabadooda waxa weeyaan waa gogashooda waa nabad weeyaan haddii nabad jirin de meeshii wax ma jiraan soo hoyga darajada inta leeg ama hadiyada inta leeg dadkii bixiyay baa tihiin haddii la idinku qaldamo dulqaata la isku qaldamay la isku qaldami doono laakiin samirkii aad lahaan jirteen lahaada waxaan idinku boorinayaa wadada saxda ah ee dimuqraadiyadda ah ee dastuurku sheegayo ee hadda odayaasha beesha Jidwaaq ay sameeyeen cabashadooda ku sameeyeen hadduu qof wax tirsto madaxweynaha ka tirsado shakhsi ka tirsado walaalkii ka tirsado inay wada hadal lagu dhameeyo maanta mise bari mise shalay beesha Jidwaaq beesha Soomaaliyeed waxay caado u lahaayeen quruxdii laga soo sheekeeyay ee nabadda horumarka deris wanaanka iyo dhaqan bulsheedka iyo dhaqan dhaqaalahaba tiibay hayaan waxaan ku rajaynayaa inay taas sii wadayaan si ay horumar u gaadhaan jiilalka soo baxayana ay ku sii waaniyaan si looga hortago khilaafaadka is-afgaran waaga waa in lagu xalliyaa is-afgarasho iyo wada hadal magaalada Jigjiga ee magaalo madaxda waa dalka 1956 ayay waxay lahayd telefoon 1923 waxay lahayd post service adeega postada waa taariikh dheer weeyaan waa meesha maamulka hadda laga maamulo waana meesha kaliya horumarka inta badan ka jiro waxaan rabnaa horumarka Jigjiga ka jira inuu goday gaadho inuu qallaafa gaadho burcu kuriya yaqaana waa 2 iyo 3 qof baa halka gacanta ka burcu kuri waa xuduudda dawlad deegaanka Soomaalida meelaha ugu fog weeyaan xagaana waa laga maqan ilaa burcu kuri inay gaadho xuduudeena horumarka nabadda inaan Jigjiga dhaafino oo meel walba gaadhno in faqriga laga tago faqrigana waxa looga tagayaa in wax la wadaago waxa kaliya in deeqay waxa weeyaan inaan wax wadaagno waxaan haysano ee ma aha waxa aan haysano inaan iska carreyno
gabagabadii hadalkayga fariinta dowladda federaalka iyo dowladda kilkaba waxaan u shurayaa anoo kaga faa'iideysanaya munaasabadan quruxda badan sida quruxda badan loo soo agaasimay inay xaqiijiyaan hubiyaan dulqaadna ka muujiyaan wada hadalku inuu yahay qayb ka mid ah dastuurka in la dhowro dastuurka in shucuubta Itoobiya meel kastoo ay joogaan ilaa heer qabale sida dastuurku ku sheegayo aaya ka talinteeda ismaamuludeeda sharfideeda in ay sugto ayaan ka codsanayaa dowladda Itoobiya siday horeba u soo sugeen meelaha goldololada ahana ay sii saxaan dowlad marka laga hadlo waa shacab maamul marka laga hadlana waa madaxda dowladda maamula weeyaan dowladdu waa shacab saan sheegay hubinta iyo dhowridda ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee shakhsiga iyo tan bulshadaba dhaqan dhaqaalaha dhaqan bulsheedka waa laga maarmaan in la xadido lana ilaaliyo qof kasta oo muwaadin ah ama dawlad ha u shaqeeyo ama shacab ha u ahaadee inuu xil ka saaran yahay corner to corner in la sameeyo wadajirka iyo midnimada mujtamacu ay leeyihiin waana in la ixtiraamo xuquuqda shakhsigu leeyahay ixtiraamka xuquuqda shakhsigu markuu timaado bulshadana waa la ixtiraamaya bulshada marka la ixtiraamana deegaanka iyo dalkaba waa la ixtiraamaya waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa nabadaas iyo horumarkaas waa furaha aaya ka talinta bulshada waana fariinteedii ugu dambeysay waana mahadsantihiin aad baan idinka mahad celinayaa